Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada video kale dhammaantiin waa idin salaamayaa meel kastoo dunida ka kala joogtaan salaanka diibso waxa wanaagsan anaga subaxay noo tahay idinkana waxaa idin rajeynayaa waqti wanaagsan inuu idin ahaado waqtigiinu insha Allah maanta waxaa idin la qaybsanayaa routiinkayga subaxa waxa aan qabto marka aan carruurta iskuulka geeyo amaba la geeyo kadib hawsha aan qabto ayaan insha Allah wax in yaro dhiirigelin ah naftayda iyo nafteynaba insha Allah waxaan isiri asxaabtada routiinka subaxa la wadaag waxaan ka bilaabaa markaan ilmaha diro insha Allah carruurta ducada ku akhrisid dirti carruurta insha Allah madbaxa ayaan ka bilaabaa weelka ayaan iska dhaqaa meesha madbaxa ayaan iska nadiifiyaa weelka iska dhaqaa qado haddii aan sameynayo waan sameeyaa inta badan qadada maalin dhaaf ayaan u sameeyaa maalin aan sameynay maalinka kale waa iska nastaa wax hawl kale oo u baahan in la qabto ayaan qabtaa marka madbaxa hadda markaan ka bilaabo iska hagaajiyo hufar yar ayaan iska marinayaa fadhiga markaan sii seexanayo ayaan gacanta sii mariyaa marka hufar yar ayaan marinayaa markaan madbaxa iska hagaajiyo kadib bas marka inta aan sameeyo marka insha Allah madbaxa iska nadiifinayaa meeshana korka iska tirtiray ani madbaxaygu wuu cad yahay marka waa inaan gacanta markasta inaan tirtiro waa khasab weeyaan marka madbaxa iska tirtirayaa insha Allah hadhow aniga ilmaha carruurta markasta waxaa 10 minutes ugu yaraan 10 minutes daily ilmaha waa in la siiyo marka insha Allah waqti yar baan isla qaadanaynaa anigii gabadhayda haddaan suuqa iska aadaynaa iska soo nafisaynaa oo light fresh la soo qaato hawo cusub la soo qaato aad iyo aad u fiican tahay energy ayaad ka qaadaysaa marka insha Allah saasaan sameynayaa daawasho wanaagsan aad iyo aad u mahadsantahay